xiisadii ka taagnayd magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ee ka dhalatay 17 xildhibaan ayaa gaartay meeshii ugu xumayd iyadoo lagu guuleysan waayay inay isku aragti ka noqdaan garaadada Laascaanood 17 xildhibaan ee Puntland ku metelaya waxaana uu hadda dagaal xoog leh ka dhex qarxay labada garaad ee ugu sareeya isimada dhaqanka gobolka Sool. intaanan ka hadlin wararkii ugu dambeeyay ee Laascaanood iyo halka ay wax marayaan, marka hore aan eegno hadallada ay isugu jawaabeen ee ay warbaahinta isku mariyeen garaad jaamac garaad cali iyo garaad jaamac garaad ismaaciil oo markaan dagaalka u dhaxeeya marayo meel kulul. 48 saacadood ee soo socda garaad waliba afkiisu ku hadlaya wuxuu cadayn doonaa in taladii uu hoggaanka iyo maamulka iyo madaxweynaha uga dambaynayo. garaadkii hadli waaya oo mowqifkiisa cadayn waaya oo talada xukuumaddu soo saartay ku dhaqaaqi waaya, cabdiqaadir waxaanu leenahay adaa cadayntiisa laga doonaya. aan cadeeyo maamulkan SSC Khaatumo aynu samaysanay reer SSC Khaatumo ay samaysteen looma igman awoodihiisa kama mid aha. ilaahay hadduu kuu roon yahay xulista baarlamaan maamul kale inooga qaybgelaya, xulistana looma dirin. ansixinta iyo u kordhinta waqti 17 hore uga mid ahaana looma dirin. sabab maamulka arrinkaa loola aado oo la yiraahdo maamulkan u dhiibaynaa ma ay jirto. arrintan baarlamaanka Puntland intaynaan maamulka samaysan waxaa xuli jiray isimo, haddeerna waxa laga sugaya inay soo xulaan waa beelo, beelahana waxaa madax u isimo anigu aan ka mid ahay. haddaba marka la eego dooda labada nin waxaa muuqata in laga adkaaday garaad jaamac garaad cali oo dhawaan magaalada Garowe heshiis kula galay madaxweynaha Puntland isagoo dani u ballan qaaday inuu soo qori doono xildhibaanada ka imaanaya Laascaanood. laakiinse damicii garaad jaamac garaad cali iyo madaxweyne dani waxaa burburiyay oo waxaan jirin ka dhigay garaad jaamac garaad ismaaciil oo sheegay inaysan wax siyaasad ah ka hadli karin isimadu, isagoo 48 saac u qabtay garaadada inay cadeeyaan mowqifkooda oo ay ku daba faylaan maamulka uu hogaamiyo Firdhiye. waxaana uu hadalkan gowrac ku noqday garaad jaamac garaad cali. intaas kadib ayuu garaad jaamac garaad cali bilaabay inuu la kulmo taliye Cabdimadoobe oo si gaar ah uga amar qaata garaad jaamac garaad cali, waxaana uu u sheegay in taladiisii la diiday oo aan waxba looga ogolayn Laascaanood, isagoo ka codsaday taliye Cabdimadoobe inuu la hadlo hogaamiye Firdhiye oo uu sheegay inuu doonayo inuu isagu magacaabo xildhibaanada Puntland ku meteli doona Laascaanood. waxaana uu intaas kadib garaad jaamac garaad cali la hadlay warbaahinta isagoo ay ka muuqato caro iyo quus, waxaana uu sheegay in 17 xildhibaan ay xuli karaan oo kaliya odayaasha dhaqanka, isagoo sheegay inuusan maamulku wax shaqo ah ku lahayn soo xulista xildhibaanada. waxaana uu hadalkan ugu jawaabay garaad jaamac garaad ismaaciil oo isagu arrintan maamulka hoos geeyay. sidoo kale siyaasiyiinta ka soo jeeda Laascaanood ee Puntland xilalka ka haya ayaa iyaguna dhinacooda si weyn u raadinaya inay mar kale ku soo laabtaan kuraastii ay ku fadhiyeen, kuwaas oo aan xitaa wax dareen ah siinayn kacdoonka ka jira Laascaanood. waana midda keentay in Firdhiye uu meel fagaare ah ka sheego inay ka hortegayaan in 17 xildhibaan bannaanka laga qorto ayagoo aan wax talo ah ku lahayn, taasoo ay garaadada qaar ku raacsan yihiin Firdhiye. waana midda keentay in garaad jaamac garaad ismaaciil uu si toos ah warbaahinta uga sheego inay arrimahan oo ah kuwa siyaasadeed uga dambaynayaan maamulka, waxaana ay odayaasha dhaqanka reer Laascaanood ku jiraan buuq iyo sawaxan siyaasadeed oo aysan maarayn karin. waxaana la eegi doonaa 24 saac ee nagu soo socda jihada ay u dhaqaaqaan garaadada gobolka Sool. intaas ayaan ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool.